balse wiil uu dhalay injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wicid ayaa la sheegay in sanadkii iminka uun dhammaaday ee 2017 lagu dilay dalka suuriya sayid xuseen faysal cali waraabe ayaa suuriya tegay sanadkii 2013 kadib markii la duubsaday oo warbixin khalada la siiyey sida uu aabihii noo sheegay waxa uu ku dhashay oo uu ku noolaa dalka Finland. xuseen waxaa la socotay xaaskiisa oo Finland ka raacday iyo 2 gabdhood oo u dhashay intii ay ku sugnaayeen deegaanadaasi waxaana la sheegay in iyadu soo xaqiijisay inuu ku dhintay weerar dhinaca cirka ah oo loo geystay goobta uu ku sugnaa. haddaba injineer faysal cali waraabe ayaa axmed cabdinuur uga warramay dhimashada wiilkiisa. waxa weeye xaaskiisii ayaa la joogtay 2 carruur meesha ku dhalay marka shalay taayay hooyadii ay u soo dirtay clip ay leedahay waxa geeriyooday oo bishii 29-keedii bishii hore iyo waqtigiisii inuu geeriyooday saasaan ku helay warka xaaskiisa soo sheegtay xaaskiisa. marka magaciisa maxaa la oran jiray? sayid xuseen baa la oran jiray. 94 uu dhashay dalka Finland ku dhashay halkaasuu ku barbaaray halkaasuu markaa dejibadaas ay ka qaadatay ku jibooday markuu arkay magarantahay sida madaxweynaha suuriya sida dadka u leynayay waa markaa propagandadani soo gaadhay dadinkaasi waa gaayo dadka masuusaa u leynaya markaa reerkii jibooti buu ka mid ahaa. marka goormuu ku biiray qoladaas IS way ugu tiri meesha laakiin isagoo marka hore wuxuu ku biiray dadka muhaajiriintu ahaa oo tagay meesha way ugu dhalatay isagoo 2013 ku biiray meesha IS gadaal iska dhalatay meesha ka abuurtay waa marka dadkii asabiga ahaa meesha u jahatay buu ahaa ana 2013 muddada adiga aabba ahaan xiriirkiinu sidee buu ahaa? aniga markii soo xiriirka mumtaxinado markuu 94 uu dhashay ana 29 aan dalka ka imid oo arrimahan Soomaaliya galay marka waxyaalaha dhow iska saarada dhawaato waxa weeye waan dayniyey oo aabbanimadii ka imid marka laakiin hooyadii ayay xiriir la lahaa markuu dambeysay la soo hadlay bishii dhawaato 25 bay ahayd marka waxaa bay ahayd uu ka soo baxay maalmihii khatar tahay oo riqa ayuu ku jiray in badan oo dowladkiinda magaalada riqasiya loo galay loo godoomiyey marka uu ka soo baxay xaaskiisii 2 carruur iyo meesha hadda ku geeriyooda ugu yimid hadda wuxuu ahaa qalbigiisa xaggeena noo soo jeeday marna markuu qaxay oo arkay meesha inuu kusoo qaldamay oo hadda xaggeena usoo jeeda ayay geeriyada u timi laakiin nimanka waxaan filaynaa uu soo baxi doonaa insha allahu tacaala saasaan rajeynaya oo khatartii weyna uu soo dhaafay marka hooyadii xiriir joogtana lahaa. dowladda Finland iyo adigu arrintan geeridiisa wax xiriira ma ka samayseen? wallahi dowladda Finland waa mar horaan u sheegnay berigii u baxayay waan nidhi ninkaas waa jibeysan yahay baasaboorka ayaa ka dhacaya ayaan loo jidiidinin marka waxay dhahayn maanay dembi nagama gelin marna xaq buu leeyahay diftii jagaalooda asboorkiisa qaato waanu sheegnay marka iyaga wadada waxbaan ka saaraynaa saanu nafteeda oga saarayo carruurteeda oga imi 29 iyagana waan uga saaraya maalinta haddee inka saxan ay tahay wax ilaahay qoray waxaan joojiyay ninkaas u teliyahay si xaaskiisa mana yeelin marka waa ilaa hadda lama xiriirin shalay kuba geeri dhacday laakiin hooyadiiba xaggaa joogta hooyadii la xiriiri doonta hooyadii. xaaskii iyo carruurtii maxay ku sugan yihiin baa la yidhi hadda? waxaana wax ku sugan garanayno kelibkaasubaa laga hayaa oo jiri maantaan hele meel internetka shaqaynayo markaa uu geeriyooday ilaa hadda waxay ku sugan tihiin iyo sidii u geeriyo midna kama hayno dadka khatartaasi oo ku jirta ilaahay inaa soo nabadgeliyo geeridan waa xaq waa meel loo wada socdo marka waa alxamdulilah rabbilcaalamiin isagoo islahaa magaranaysa wanaag baa wadaayo diinta kor u qaadka ku dhintay in badan waa jirto carruur ku dhimata meel xun marka isaga maqaam fiican buu ilaahay aan ku barin ilaahay maqaam fiican geliyo kalimatullah buu islaa kor u qaad marka waxaa lahay waxaan maanta aan inuu noo shafeeco qaadan insha allah ka barina insha allahu tacaala jannadii kalena ilaahay ka barina subxaana watacaala ilaahay qalbigiisa u qaado
هذه أنا حمدتك بدل يسوق حسيرين أنا جالسين أنا سيهم يجيك BBC ما سنتين لا يكمل سمر يعني